waxaan leeyahay habeenkan qiimaha badan waan isugu nimid mashruuca weyn waan aaminsanahay inuu qayb ka geli doono taariikhda ummadda Soomaaliyeed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo gobolka Banaadir waxaan ugu mahadcelinayaa inay caawa isugu keeneen iyaguna ay rabaan inay noqdaan kuwii qaaday tallaabada ugu horeysay oo ah dalkan inay dadkiisu dib u dhistaan tallaabadii ugu horeysay ee mashruucii xilqaan oo ah Soomaalida u maqan inaad hormuud u tihiin haddaad tihiin dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo madaxdiina oo ku mahadsantihiin su'aashu waxay tahay marka waa maxay isxilqaan macnihiisu waxa uu yahay waa isdir oo dalkaaga dhiso isxilqaan macnihiisu waa mas-uuliyad isisaar oo maslaxadda dalkaaga adigu ka shaqeey isxilqaan waa adigoo u damqada dalkaada iyo dadkaada waxna u ogolaada isxilqaan waa adigoo fahmay in wax kasta oo waara oo dalkaada ku waara ay noqon doonaan ama yihiin wax wadajir loo soo dhisay isxilqaan waa idinkoo gartay ogolaadayna inaad taariikh ka tagtaan isxilqaan waa adigoo aqbalay inaad waqtigaada qayb ka mida aad u hubeyso qarannimadaada isxilqaan waa annagoo aqbalnay inaan isku tashanno oo aan annagu shacab ahaan daboolanno baahida aan qabno isxilqaan waa adigoo aqbalay in adiga uu dalkaaga xilkaa saaran yahay macnaheedu waxay tahay isxilqaan waa adigoo mas-uuliyaddaada shakhsiyeed aqbalay isxilqaan waa adigoo fahmay inaad ama xooggaada keento ama xoolahaada keento si dalka dib loogu dhiso isxilqaan waa anagoo fahmnay inaan iscanaanano oo aan dalkeenna caabta u diidno isxilqaan waa anagoo fahmnay dhismaha maanta waa dhaxalka dhalinta berito isxilqaan waa adigoo dhididkaada iyo dhaqaalahaada u aqbalay inaad ku dhisto dhulkaada gobolka Banaadir iyo madaxdiisa iyo shacabkiisuba way ku amaanan yihiin inay isxilqaannimo ku bilaabaan in dalka dib loo dhiso sida golaha wasiiradu ay ku ansixiyeen shirkii golaha wasiirada ee ka dhacay magaalada Garowe madaxweynaheennuna uu uga dhawaaqay kalfadhigii afraad ee furitaanka golaha shacabka in lagu shaqayn doono isxilqaan waxaan dib ugu soo celinayaa inay dhab tahay inaan ku bilaabi doono annagoo idin kaashanayna si fanaaniintiinna ay u farxaan golaha murtida iyo madadaalada ma aha sanado ma aha bilo waxaa lagu bilaabayaa usbuucyo gudahood ee soo dhowaada waxaan isxilqaan ku dhisi doonaa maktabadda qaranka madxafka qaranka xarunta xisbiga iyo jidad iyo meelo kaloo badan waxaan rabnaa marka inaad u soo diyaar garowdaan waajibkiinnii dib u dhiska dalka inkastoo injineer Yariisow iyo madaxda gobolka Banaadir ay mahadsan yihiin kulligood haddana magaalada Muqdisho kaligeed ma aha dalka Soomaaliyeed
sidaas daraaddeed waa in isxilqaan lagu dhisaa dalka oo dhan oo ay ka qayb qaataan shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan sidoo kale waa inay ka qayb qaataan madaxda qaranka meel walba ay joogaan iyaguna inay isxilqaan dalka ku dhisaan madaxda qaranku waxay ku guuleysteen inay ka soo wada shaqeeyaan waxyaabo badan waxaa ka mid ah qaab dhismeedka amniga qaranka waxaa ka mid ah qorshaha kala guurka oo dib loogu xoreynayo dalka ciidamadeennuna mustaqbalka kula wareegi doonaan amniga waddanka waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ka soo wada shaqeynay hanaanka siyaasadda loo dhan yahay gaarsiinta ama ku heshiinta in dalka lagu soo dabaalo doorasho qof iyo cod ah haddii ilaahay yidhaahdo madaxda qaranku waxay ka soo wada shaqeeyeen waxyaabo kale ay ka mid yihiin khayraad qaybsi waxay bilaabeen dhammaystirka dastuurka dib u falgelidda hay-adaha dhaqaalaha dunida kobcinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo in cagta la saaro dariiq dhab ah oo nagu ridaya dowladnimada mustaqbalka aan rabno waxaa muuqata horumar weyn oo ay ku tallaabsadeen ma aha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ay ku tallaabsadeen shacabka Soomaaliyeed maadaama maanta ay joogaan iyagu inay bilaabaan inay dalkooda u dhisaan dib iyagoo isticmaalaya halkudhigga cusub oo ah isxilqaan maadaama madaxda qaranka ee dalkooda ay ka soo wada shaqeeyeen waxyaabahaas aan hore u sheegay annagu waxaan diyaar u nahay inaan sii xoojinno wada shaqayntaas miro dhalka ah sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa in wax walba oo dalkan ka jira siyaasad ahaan oo tabasho ah la isugu tanaasulo iyadoo loo danaynayo dadka Soomaaliyeed oo u baahan dowladnimada waxaanan soo dhaweynayn in la yiraahdo magaalada madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma aha ma garanayno cidda loogu danaynayo laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtoodo inay sidaa tiraahdo inay tahay astaanta qaranka inay tahay magaalo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay gacmahooda ku wada dhistaan inay tahay magaalo aan qolo lahayn ay tahay magaalo Soomaaliyeed inay tahay magaalo madaxdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay tahay xaruntii dowladda dhexe iyo baarlamaanka sidoo kale waxaanan soo dhaweynay in la yiraahdo daraf saddexaad oo ajnabi ah hana soo dhex galo daraf saddexaad waa dhaqankii aan soo baranay oo la dhihi jiray ajaaniibtu ha u kala garqaado madaxda Soomaaliyeed kaasi waa la soo dhaafay xaaladda dowladnimada ay ku sugan tahay maanta waxay maraysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dowladnimada ay soo noqotay waxaan leenahay marka waa la soo dhaafay waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay aqbali jireen in madaxdooda ajaanib ay u kala turjunto waxaan leenahay haddii aan madax nahayna waa inaan ogaanaa inaanay shacabka Soomaaliyeed naga yeelayn nagalana aqbalayn marka maadaama aanay shacabka Soomaaliyeed yeelayn
annaguna ma yeeli karno wax aanay shacabka Soomaaliyeed ogolayn sababtoo ah inaan aqbalno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxa ay tahay waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka saldhigga u ah dowladnimada hadda noo dhisan danaha Soomaaliyeed waxaa ka turjuma shacab iyo madax Soomaaliyeed ma yeelayno inaan 20 sano ka badan dib u noqono annagoo marka ka shaqayn doona wax walba oo keeni kara inaan hore u dhigno qarannimada iyadoo looga shaqaynayo maskax iyo maal iyo muruq Soomaaliyeed waxaan soo dhaweyn lahaa markaa inaan idhaahdo ballanteenu waa inaan kulligeen Soomaalinimo dalkeenna u wada dhisannaa waxaan leeyahay markaa kii ka dhuunto dhibka diido dhaxal kuma lehi